الله الرحمن الرحيم. halka waxaan ugu hayaa maxamuud nuur dillaal oo leh ganacsade magaalada degan ah maalin dhaweeytana ka fidiyay oo ka sheegay war aan jirin lacag uu leeyahay oo ku lahaa dawladda hoose annaguna aan ku lahayn lacagtaasi waxaan u qaadanay jeegii loo sameeyay cashuurtii lagu lahaa ama ardiyadii lagu lahaa 2 sanadood baa lagu lahaa حتى وحوي لبضي الصنادات ويجاري العقد حتى يمكن جياك حال لقولها يسوي عشورها لقولها هورنا واحد نقول الشيء إن العشور توقع هذا جياك كاس مركو جياك كاس صبحه ويسكت هي عرضية ده لبصنا هي لقولها حتى يمكن جياك اللوسمي وحنا نقول أنا حتى العقد النجو أولو هيصلنا جونا داس وكوا جونا ديس وكوا وحنا هيصلنا العقد سجاشن كل أو كوجاي جونا دا anagoo ka deynay bar waliba daal laasin u sameeynay oo wax ka deynay maadaama uu jeegiisu ku cayiban yahay lacagtan oo ka dhimay lacagta lagu leeyahay lacag badan laga galay ayaa waliba discount u sameeynay discount-kii ayaa lagu sii yeeshay 90 kun baan haysanaa joolada hadda 90 kun ayaan haysanaa waxa lagu lahaa 2 sanadood oo ardiyad ah oo guriyihiisa oo aanu bixin waa kala hore iyo sanadkan marka waxaan ku heshiinaa marka ayaga horeba inuu ku bixiyo jeegan lagu ku leeyahay dawladda hoose cashuurta ardayda lagu leeyahay waxaan taagnaa in aan jeegan la bixin baan taagnaa oo agaasimi cashuuraha in la siin odayga jeeka laga hayo maadaama aan ku leenahay ardayad 2 sanadooda labada sano horun lagu lahaa wax ka horeeyay jiray waxyaalo ka horeeyay hore way jireen odayga lama bixiyo ganacsato ma aha bixiyo cashuurta oo ku wanaagsan ma aha marka jeegan laga soo galay awgeed ayaa la yiraahdaa si loo bixiyo raxin arintan maxamuud nuur dillaal soo noqotay ee warbaahintana ku sheegay internetyada in lacag laga dhacay waxaan ogahay in maxamuud nuur dillaal dawladda hoose ay ku lahayd lacago ardiyad ah oo muddo 2 sano ah lacagahaasoo 3 milyan iyo 500 oo kun ahaa maxamuud nuur dillaal sidoo kale wuxuu ku lahaa lacag dawladda hoose wuxuuna dalbaday in lacagtii la siiyo sidoo agaasimaha cashuuruhu idiin sheegay agaasimaha cashuuruhu wuxuu joojiyay ama hakiyay jeegaas la siinayo maxamuud nuur dillaal isagoo agaasimuhu cadaynaya in lagu leeyahay lacago ardiyada sidaas daraadeed lacagta marka la siiyo ee jeega magaciisa lagu qoro jeegaas waxa lagu wareejinayay agaasimaha cashuuraha si lacagtii ardiyada ee lagu lahaa looga goosto jeegii waxa lagu wareejiyay agaasimaha cashuuraha lacagtii uu nagu lahaa maxamuud nuur dillaal waxaan ku wareejinay jeegiisii agaasimaha cashuuruhu si arkaysaanba wuxuu u jaray jiiwanadaas oo lacagtii waxay dib ugu noqotay dakhliga dawladda hoose maadaama aan anagu ku lahayn lacago ardiyada waxa kaloo jirta in ilaa imika ayna lacagtii lagu lahaa maxamuud nuur dillaal ayna dhammaystirnayn oo lacagi ka dhiman tahay sida uu noo sheegay agaasimaha cashuuruhu lacag 90 kun oo shilin Somaliland ayaa lagu yeeshay oo wali ku leenahay waxaana loo sameeyay waliba discount waxaana ogahay mar walba oo la gaaro ardiyada liisanka in qaylo iyo moron iyo qaaq iyo jaqaaq lagala kulmo maxamuud nuur dillaal mana fiicna qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu sheegto weeyi ma fiicna in la iska cambaareeyo warbaahinta qofkii oo lacagtan uu sheeganaya ba lagu leeyahay oo waliba saa'id lagu leeyahay inuu warbaahinta intuu tagay waa la dhacay dawladda hoose lacag iga dhacday dawladda hoose waxba kama dhicin dawladda hoose waxay hakisay jeegii lagu lahaa markii aan codsi ka helnay agaasimaha waaxda cashuurahana jeegii baan ku wareejinay lacagtii aan lahayna waan ka goosanay isaga ayaanan daalac ku yeelanay sidaas ayayna arintu tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh lan kadib kulli aniga hadal badan ma malayna in la iga baahan yahay halkan maanta waxaan u nimid inaanu dacaayadihii laga faafiyay website-da inaanu cadeyno waxay ahayd sidaas awoodeed baa halkan wadinka arkaya agaasimihii cashuuruhu isaga ka mas'uula cashuurta kasoo aniga xogeeyo ahaan inkastoo dakhliga iyo qarashka baan mas'uul ka ah
wixii lagu leeyahay cashuur ee uu isoo gudbiyay agaasimaha maaliyadda waxaan xaq u leeyahay haddii aanu kharashaad ku leenahay qofka weliba cashuur diidka maxamuud nuur dilaal waa cashuur diid waa dadka aan hantida badan magaalada ku leh laakiin cashuurta aanan bixin qof kastoo cashuur diideena markay hantidiisu na soo marto waxaan xaq ugu leenahay inaan hantideeda u qaadano hantidan dawladda annagu inaan ilaalino mas-uul ka nahay maxamuud waa cashuur diid sidoo agaasimaha maaliyadda hadda idiin sheegayo maaha dadka cashuurta bixiya waana dadka ugu ganacsiga iyo guryaha badan magaalada deyntaa uu meesha ku lahaa iyo markaanu isku miisaanay qaanta lagu leeyahay dawladda hoose ku leedahay weliba qaantaa badneed agaasimaha cashuuru wuxuu soo dalbaday in jeegaa loo xanibo isaguna raallibu ka ahaa markaa waxaa keligii nagu leeyahay juqaneh jeeganu doondoonayana dawladda hoose iska lahayd wuxuu ahaa kharaj iyo dakhli waxaana lagu xareeyey akoontka dawladda hoose oo agaasimaha cashuuraha lagu wareejiyey agaasimaha maaliyaddana soo saaray raadraaciisiina oo adinka arkay halku ku dambeeyey dee jaag uu qaata naguma lahayn jaagu doondoona naguma lahayn cambaaranta noocaasna qof dhan oo dee ma malaynayo xiskiisu dhan yahay horta maxamuud maanta siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay dad ujeedala inay ka dambeeyeen iyo inuu isaguba xiskiisu isdhaafsan yahay ma kala garanayo waxaanse leeyahay qoladan maaragta warbaahinta war marka aad war aragtaan institution dhan oo qiimo dalka ku leh oo institution horumareed oo adeeg bixineed weyn dawladda hoose oo ummaddu leedahay markaad war aragtaan hubiya intaydan websaytyada gelinin oo dawladda hoose oo idin furantay ruuxa maxaa ka jira dhah maanta haddii aad imaan lahaydeen dawladda hoose oo aad hubin lahaydeen waxaasiba ma dhacin dadkii baa na soo weydiinaya oo lima odaygaasaad jeeg qaadata anagu dadka waxbaan siina waxba kama qaadano dawladda hoosena waa meesha ugu culays badan inanka dhallinyarada baxayaa shidaal la weydiista dadka masaakiinta tabanaya noo yimaado oo na weydiista deeq ciddii magaalada dhibaata ka dhacdaa noo timaado wax la weydiista waxaanu u joognaa adeega dadka laakiin dad annagu waxba kama qaadano ee annaguba culaysku inta badan na saaran yahay markaa waxaan leeyahay bahda saxaafaddana mar kastana waa idiin digaayo war institutionka ilaashada waxaan waa idinkaa arkaya waxaan annagu dadka wax u tagna mooyaane waxaan yeelnaa ma jiro waxa weeyaan sidaas ayaa loo baahan yahay inaad ilaalisaan wixii sharafta dadka iyo dalka ah dawladdana idinkaa iskale dawladda hoose idinkaa leh war wixii alla waxaan gaflanahay diidi mayno meeshaad doontaan loo mariya laakiin wixii daylqaafa ee kibira ee maaragtaa been abuura dee hanoo raacina ee yimaada meelaha institutionada wax ka jiraan xaqiijiya annagu saxaafadda ma xadxodanayno ma dhibaataynayna haddana mana jeclin inaanu afka qabanno cid alla cidaan u qabsanaynaa war xun iyo war fiicanna ma jirto laakiin idinku waxaan idin leehay war warka yaga hubiya wixii saxa meeshaad doontaan noo mariya wixii wanaagsanan qabanana meel kasta gaarsiiya laakiin wixii been abuura bal warka maalinu hakay war kastoo laydiin sheego xumaano hubiya warkaasi inuu sax yahay iyo inuu qalad yahay